السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة كدب وبرامج كني تحنها هاي ماركتي وندي وحسو شيء برامج كان أروح نقصه هذا دمر كالصوماليات دمر كنت بدن وحليهن دمر كواحد هذا الشيء دمر كاد واحد الشيء تي رقي فريمي سو gaara qaarkood waxay leeyihiin adiga cadaalad ma tihid raggii maaragtay waxba maada ka sheegin maada ka hadlin marka afeen baan soo jeedin insha Allah gabdhaha waa gabdhaheeni waa hooyooyinkeeni waa ilma adeeradeeni waa inaabtiyaasheen waan uga mahadcelinayaa runtii mana ahan inaan jaanib kaliya ka hadlo dhinaca kaliya ka hadlo dhinaca kalena aan ka hadlin asalka waan rajaynayay laakiin bishii ramadaan baa soo gashay waqtigu aad u yar howlaho iska badan marka waan ka cudur daaran runtii daawadayaasha qiimaha badan farimihiinana aad baan uga mahadcelin dadka kaleba iska dhaafay reerkayga hadda su-aashaas i weydiiyeen marka waana rajaynayaa marka in si cadaalad ah inaan uga hadlo ma ahin ragga Soomaaliyeed markaan ka hadlayna ama dumarka inaan qolo qaar aan necbahay ama qolo qaar aan duulaan ku ahay waxaan jecelahay in raggeeni wanaagsanaadaan waxaan jecelahay dumarkeeni inay wanaagsanaadaan qalbi saliim ayaan dadkayga kula hadlay ilaahayna waxaan ka rajayn sidii saxaabigii maaragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu bishaaray jannada inuu dhammaanteen qalbi saliimna siiyo sadru salaama wax la helo maayo qalbi nadiif wax la helo maayo waa inaan iska doondoonna oo raadina oo waqti ku bixina waayahay aan u gudugalo ragga ugu fadli badan ragga Soomaaliyeed ku daydan waa su'aal way taytalka waxaan ka dhigay sidii kii hore oo kale ama ciwaanka wax leeyahay ragga caalamka ugu fadli badan waa عشر المبشرين وتقانان وحكمدا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومقعيسى عبد الله بن عثمان بن عامر ليراهضو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه علي أبي طالب رضي الله عنه أفرت خلفاء راشدين ونبي يري كديدا جوز دمبيتك كقبسدا وأفرت نوغه الرئيس الرنتي وسؤال رجع Soomaaliyeed maxadiiday in raggaasi ehlo khayrka inay ku daydaan oo ay wadadoodii raacaan waa su'aal ku socota raggeeni walaalkayga muslimka oo ku dayo kuwaas iska dhaaf ragga gaalada iyo dhaqamada labiska ficilba aad ugu dayanaysaan waa raggii aan la hadlayaa si toos ah tobankii jannada loogu bishaaray ku dayo oo Abubakar u horeeyo Sidiiq Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Ali Abi Talib عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله أبي عبيدة بن عامر بن الجراح سعد بن أبي وقاص سعيد بن الزيد الزبير بن عوان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم الله كرى لنقدر دمان تدبا وطبنكي جنة اللوغو بشاريي وطبن كان لهنا أنك انت بدن وطبنك أنك dadka kale waxay yiraahdaan top 10 waa top 10 ka muslimiinta ku jira ayay ka mid yihiin iyagana noogu fadli badan iyagana maaragtay wadadooda ina qaadna iyagana naga og qaabkii nabiga noolay sallallahu alayhi wasallam wax badan oo keenayna oo ku soo darayna diintan ma jiro iyaga waxay garan waayeen anaga ma garan karna iyaga la noolay waqtigaas nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaas aan uga gudbin ragga ugu fadli badan waa tobankii jannada loogu bishaareeyay fadligaas diintooda iyo adduunyadooda lama soo koobi karo laakiin waxaan ku soo koobi in yar wax yar ayaan ku soo koobi waxaan ku soo koobi qaabkay dumarkooda ula dhaqmi jireen waa si heer sare oo aad u wanaagsan wali afar dumar ayay lahaayeen qaarkood ayay qabeen annagana halkii dumar ahay ama halkii xaas ayaaba naga soo sheeganaysa wali aan dayacnay oo sidii dhar camal ayaan dumarka u bedelnaa hiblaayo soo gal hiblaayo bax waxaan u jeedaa rag waxa jira iska caadaystay oo doonisti la yiraahdo oo dumarka jecel dumarkana way ku jiraan dumar sidaas oo kale ah oo rag aad u jecel marka xal ma noqonayso marka sida dirac la soo iibsanayo kale hiblaayaha soo gashay hiblaayaha baxda
gabadhan waa walaasha, gabadhan waa gabar Soomaaliyeed, marka adiga xaqaa leedahay ma ahana guurka ama nolosha ama reer in la wada dhiso ama lamaane in la midoobo macnaheeda maahin in maaragtay lagu cayaara. qaabka cibaadadooda marka maba gaarnaba, quraan akhriskoodii ma gaari karno, waqtiga ku bixin jireen iyo waqtiyadooda soo qaybsamay ama 3 qaybood qaarkood ay u qaybin jireen waqti ilaahay ay u cibaadaystaan iyo waqti ay shaqaystaan iyo waqti reerahooda la qaataan, sadaqadooda iyo waalidiintoodii sadaqadii bixin jireen mayna gaari karno oo wixii guriga u yaalay keeni jireen oo maalkooda dhan ay nabiga ku garab istaagay sallallahu alayhi wasallam oo quraankaba lagu amaanay abubakar radiallahu canhu suuratu lleyl aakhirkeeda haddaad akhriso. weli diinta alle oo loo shaqeeya annaga kan noogu roon waa wadaadka 5 salaadood tukada oo kitaab yar ummadda u akhriya oo masjid wax ka akhriya, waa ninka noogu fiican oo noogu khayr badan oo dadka noogu anfac badan. ama inta kaleba qaamiin iyo qarindumis ayaynu ku mashquulsannahay iyo fadhi ku dir. intaas ayaa hoosheenii noqotay. maanta oo dhan waan soo xabiibsanaynaa, indhahana gudutay, wax aan ajar ka helaynana ma jiro. weli waa dambaabaynaa, dad masaakiin ayaan waxaan cunaynaa dhiigoodii oo asalka xanta ma bannaaneen. qaabka labiska marka annaga labiskeeni waxa waaye, iyaga labiskoodii waxaa ahay labis oo maaragtay sunnadii waafaqsan oo sidii nebiga sallallahu alayhi wasallam iyo dhar wanaagsan ayay gashan jireen, laakiin qaabka annaga labiskeenii waa ka duwan yahay. iyaga dharkay gashanayaan dhar waxay ahayd islaamka ogol yahay, laakiin annaga maskaxdeena ka keennay oo ah labiska surwaalka oon aragna inta badan dabada kasii dhacaya ayay raggeeni wataan, oo sida dirac oo kale ayaa gabadhii maaragtay jiidaysa oo kale ayaan dhinaca haynaa. raggan la hadlayo ma ahin ragga wanaagsan, ma ahin ragga ahlu khayrka, ma ahin ragga wanaagsan. waxaan ka hadlayo waa rag inta badanba u tafaxeetay inay yihiin bayzani, waa rag u tafaxeetay inay iyaga keliya reer magaal, waa rag u soo arka inay magaalooyin qaar ku dhasheen u yidhaahda annaga xadaaradda keennay. raggaas waa raggan u jeedo, maahine ragga kale oo akhyaarta ah kama hadlayani mawduucan. marka rag haddii laga hadlayo isdihin anigana waa ku jiraayo oo maaragtay maxaa raggii loo taabtay. timihiina jeegaan noo jaran oo tintii asalka in si caadi ah loo jaray ahayd, laakiin jeegaan noo jaran oo waxaan ku dayanayna nin America jooga oo leenahay isagaa naga horumarsan oo tvda ka aragna. qur-aanna maba dhegaysanaba, qur-aan iyo sunne iyo warkeeda maba jiraba. waxaa laga yaabaaba in bisha ramadaan markay soo gashay ninka ugu fiicanba uu qur-aan dhegaystaba. alaysa kadalik? qur-aan maba la dhegaystaba, wax u saaran raab ama heeso, qaraami u saaran ama reexamar u dhegaysanaya ama tango u saaran. tango ma kii barnaamijkii la wacay kii communicationka lagu sameynayo ma waa kii kalan ka hadlaya iyo wax kasii xunba. balbadna waad u sii dheer tahay, qaad iyo sigaar iyo shiishad iyo qamri walciyaadu billaah. intaas waa u dheer tahay qofkii. qaablowneedkeenna marka waa habeenkiina waan soo jeednaa, maalintiina waa jiifnaa. oo xaaskiisana ku yidhaahda bax ilmaha iskuulka ama madarasada qur-aanka geey, iyadaa kacaysa, iyadaa qabanaysa, iyadiyaa shaqadii isaga lahayd u qabanaysa. reerkiina wuu dayacayba. okay, gabadhii lagu shaqaystay maba xumabe, habad geysay carruurtii, wuu dayacay iyada xitaa baahideedii. reernimo war uma hayo xaaskiisii, war badan uma hayo, oo gurigu iska soo galaa. ilan gabadhii waxay guriga joogtaa markay carruurta seexisay inuu iyada waqti la qaato, laakiin maba joogo ninka odaga ah, waa maqan yahay. sidaas daraaddeed marka gurigu iska soo galaa wuxuu yidhaahdaa ereygaa inaan yidhaahda ma jecli, weligiina kuma waran xaaskayga. waxaan u arkaa erey liidisa ka shaqsi ahaan, laakiin adiga waxaa laga yaabaa in wax fiican ay kula tahay, laakiin ana aragtideedan ka hadlaya. ereygaasuu yidhahdaa naayaa yidhahdaa maxaad karisay. qofkaad nolosha idinka dhexayso waa inaad magac fiican ugu yeerta, waa inaad si fiican ula hadasha, waa inaad xaqa adiga aad wax sidaa jecesha in lagula hadlo. axsinu kamaa axsana allah. adiga sidaa jecesha in lagula hadlo waa inaad dadka ula hadasha. akhlaaqiyaadka waa inaynu iska saxno markaynu qof weyn, qof yar, qof dhalinyaro ah, qof kugu dah
aad la hadlayso waa inuu qofka hadalkiisii kontroolan yahay laakiin waxaan doonaa iska sheegay afkayga anaa iska leh maxaad karisa ayuu leeyahay markuu cuno wuu sii ordaya intaasuu ku ekaada waa orday hebel ayaan la ballansanahay hebelka meeluu ka yimid lama yaqaana hebelka iyo reerka yaa horeeya reerkaa horeeya hebelka waa inaad meel iska dhigta marka aan la ballansanayo markuu yimaadana waa badaalan dhinaca kale ayuu usii jeestay oo gabadhii oo maantao dhan laga yaabo inay intuu maqnaay ishagaajinaysay oo diraceeda ay geshanaysay oo guriga unsi ay ku shiday iyada warba looma haayaba waa qisada u malaysa umar zarc ka sheekeynaysa u malaysa mararka qaar dadka qaar waxay suubinayaan qisatu umar zarc ka raadiya google iyo youtube maaragtay gabdhaha soo dhageystaan markaas umar zarc waxay sheekadeeda ahayd ogaanaysa marka waa cunay waa cun oo cab oo iska jiifa shaqadiisa waa inuu cabo iska jiifa howlihii looga baahnaa warba ma hayo qaabka waqtiyada oo shaqada fasaxaya ka soo qaad nin shaqay inuu yahay oo shaqada orod ku taga oo ilmihiisa iyo reerkiisa biila inuu intaas akhyaar ku yahay laga yaabo markaasuu tigid ayuu soo goosan keligiisii oo reerkiisii kama fikiraya inuu fasax ay wada baxaan carruurtii halkee fasax tagnaa sanadkan maxaynu suubinaa dhaqaalaha yaraynu haysanaa maxay waa reerka wax loo baahan yahay washaawirhum bilamri in la wada tashto meeshan ma jiro wax la dhahay dictatorship qofka ku amar taagleena dumarkiina waxa lagu eedayaa markay galbeedka yimaadeen inay raggii bannaanka dhigeen oo iyagii awooddii la wareegeen laakiin waa gabadha jahawareersan waa gabadha aanan ogeyn wixii islaamka yiraahday waa gabadha aan dhaqanka soomaaliyeed garanayn way taas laakiin raggiina waxaa la rabaa isagana inuu sadbursi u la imaanin oo dumarkii lala tashta oo nabiga sallallahu calayhi wasallam watii umu sulaym sulxul aad la socoteen oo maaragtay qisooyinka caanka oo la tashan jiray oo qadiijo la tashan jiray marka washaawirhum bilamri dadka kala tasho qofka wax idin kala dhaxeeyaan ama xaaskaaga ha noqoto ama qof business idin kala dhaxeeya ha noqoto ummadda waa ummad wada tashato waa inay noqoto ma ahin ummad iska fowda ah oo waxay rabta suubinaysa in noloshii laga dhiga marka tigidu keligiis ka soo goosana Nairobi ayaan gaarayo ugu sheekeynaya gabadhii Hargeysa Nairobi gaari ama Hargeysa gaari ama Muqdisho ama Kismaayo ama Garowe magaalooyinka Soomaaliya ka meeshan doon wadanka soo arkiyo ama soo fiirino halkaas oo ka dhacaya ala kulli hal markuu halkaas tago muxuu sameeynaa gabar maskiina dhowr bari markuu joogo oo dhaqaale xumi haysa ninkan Yurub ka yimid waxaa loo arkaa nin isku toostoosan dadka Soomaaliya joogana hadii cajaladan dhageystaan war meeshan janno oo rabbil caalamiin kugu wacay ma taala galbeed ma shaqa taala iyo dhibaato markii yaa lagu sheegin ninkan telefoonkan oo deynta ku soo qaatay oo iPhone-ka ama S5 oo Samsung ku wata iyo ku tahluujinin macnaheedu waxa waaye waa waxa uu bishii xoogaa yar oo fee ka bixiya oo ku qaatay oo markii ah u malaynin marka ninkan wax kasta haayo ummadina yaa maskaxda laga waalin oo waxaan jiray yaa loo sheegin markuu tago markuu muxuu sameeynaa gabar yar oo maskiin oo dhaqaale xumo haysa ayuu gabarnimadeedii ku soo ciyaaray waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ah nin kasta wadanka taga madaarista iyo meelaha iyo dugsiyada iyo jaamacadaha iyo ayaa la geeyaa ama dariska iyo meelaha markaasaa marka gabdho yar yar oo dhalinyaro ah oo waxbarashadii soo dhameeyeen oo future haysan oo rag fiican gacanta ku hayn ayaa la leeyahay ninkan ku haban reerka maxay rabaan $100 oo la soo diray waxay ka fikirayaan kaliya gabadhoodii inay bixiyaan oo $100 subxaanaka ya ilaahi waa arrin aan ku haboonayn gabdhaheena in sidaas la yeela waa arrin aynan isaahilin oo qiimahoodii iyo sharaftoodii aan hoos loo dhigin waalidiintu waa inay aad uga fikiraan gabadhoodii ragga ay siinayaan sababta waa masiirkoodii iyagay ku soo laabanaysaa gabadhan haddii ilmaha keligeed koriso asbaab waxa u ah ilan wax walba sabab ay leeyihin waalidka laftirkiisa qayb ka cayaaraya marka dhaqaale xumi ayaa jirta gabadhii markuu ku cayaaray 4 isbuuc kadib ninkii waa ka soo laabtay waa gabar maskiina afka laga qaba gabadhii nin bay u baahan tahay nolol bay u baahan tahay ma ahin $100 iyo $50 oo loo diray inay nolosha tahay xaqiiqatan dadka qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan nin waxaad ka soo horjeedaa laba in la guursado saddex nacam Allah wuxuu yiraahdaa laba guurso oo saddex guurso intaad awooda laakiin inaad cadaalad fasha laga rabo waxa ugu weyn oo gabadha marka guursato waxa alwijaa inaad la kulmi karto arki karto haddaad 3 sano 5 sano mar arki karin Soomaadka waa xaqiiqo
idinka iska dhaafa dadkoo dhan wada haysata oo rag badan ay wada haysata xaqiiqda lama qan mararka qaar waxaa jira waxaad is leedahay samee oo wanaag ka samee laakiin kaa hoos baxay adigoo dadaalaya mararka qaar oo qalbi fiican oo niyadaadi fiican tahay ayaa wax badan kaa hoos baxay marka tajribada haddaad ku fashilanto wixii lagu fashilmay waa in dadka looga digo waxa ka sii darantaa xataa ka sii daran halkantii ilmaha kaga baxsaday xitaa looma sheegin waddanka la tagay gabar ablas ka soo guursada waxay ahayd inuu iskaga sheego yiraahdo war anigu is soo habeynay ama xanaaqda ama iska dhaafta baxsaday marka walaalay saasa wax u dhacayna hadda markuu soo laabtay dhihi maayo suuqay ka soo maqlaysaa markaasay marada tuuranaysaa iyadana waa tu kale maradii tuuranaysaa okay waa sax waa dareen qofka bini aadamka ku abuuran waa culays laakiin waxay ahayd haddii loo sheego oo marka horeba lagala hadla inaysan sugi lahayd oo haddii dhacdana aysan wax badanba ay dhibaato badan ku yeelan lahayn laakiin qof oo gayaankaagii ah oo lamaanahaagii oo nololkaa la dhexeeya oo waxba kuu sheegin oo suuqa kasoo maqashay sheekadiis aad bay ku dhibaysaa runtii waa wax jira waaba waalanaysaa markii gabadhii waxaa laga yaabaaba noloshii iyo reerkii iyo ilmihii hooshay kaa haysay iyo wixii culays saarnaayba iyadoo culayskaas kugu sabraysa haddana culays kale markaad ku korgeliso maskaxdeedii aad bay saameyn u leedahay waa dhaqanxumada aan dumarkeena ku hayno arrintaas waa arrin waaqic ah ama ha noqdo nin wadaada ama waralla ha noqdo ama qof maaragtay shacaba ha noqdo waa arrin xaqiiqa oo jirta oo lisweydiinayninba dumarka laftirkooda dab yar ma shidayo haddana waxaan aaminsanahay laftirkooda dab yar ma shidayaan waxay ahayd iyada laftirkeedaba waxaa laga yaabaa inay asbaab u tahay inuu naag labaad goorsado waxaa dhacda mararka qaar markay hal dhasho ama laba dhasho waxyaalihii ay raggeedii ninkeedii u samey jirta ayay gabaysaa qaar caqli badan baa jira oo raggoodii aad u ilaashada iyo qaar aan caqli lahayn oo inta badan ba iska dayaca oo ninkiiba war badan u hayn marka wuu ku qasban yahay inuu mid labaad raadiyo adaana sabab u noqonaysa marka gabdhaha waa inay ka fikiraan asalka in qofka nolosha idinka dhexeeya uu xuquuq badan kugu leeyahay si nolosha usii jirto waa in aad iskaga fikiro waxaan loo fikiro waddo dheer oo mustaqbal dheer inuu idinka dhexeeya aysan waxyaalaha culayska soo kala dhexgalay ay maaragtay macaamalaadkiini wax badan u dhimin waxaan aaminsanayaa runta rabbi ayay raali gelisaa haddii runta la sheega rabbi raali gelinaysaa dadkana raalli ayay kaaga noqonaysaa waa xadiis ya xaqiiqda runta waxa waaye runta waxay ku hogaamisaa ina albiro maxayd ina alsidqa yahdi ila albiri marka runta waxay ku hogaaminaysaa samafalka iyo wanaagga weligaa runtaa ka gabanoo xaqiiqda iska sheeg hadaa akhyaarta waxaa tirahdaa reblaayo quruxsan baan kasoo helay xaajiyo qoftaan ma ku labaystaa adigoona aan ka gabanin xaqiiqdana miiska u saara laakiin marka hore waxaa lagaa rabaa tii horeba inaad mas-uuliyaddeedii iyo waajibaadkeedii meesha saarta raggeena ma yaqaanaan reerahooda maxaa waqti lala qaata raggoo dhan kama wada hadlaya waa rag ka mid ah oon farta ku fiiqay waa dhaliisha ugu weyn aan ogahay oo isweydiye dhegeysto adiga i daawanaya ama dhegeysanaya waxaad isweydiisay adiga ma tahay kaas la sheegay jawaabtaada haddii haa tahay noloshaada wax ka bedel wax badan inaad ka bedeshaa u baahan tahay waxaan ku xusuusin anigaa iska bilaabaya inaan nolosheeda wax ka bilaabo gabadha walaashaa xaq bay kugu leedahay sida shalay markaad shukaansanaysay ama aad u kolkoolinaysay maantana u kolkoolin shalay markaad hadhicin ha jabin lahayd maantoo kalena waxaa lagaa rabaa inaad dhahdo hadhicin ha jabin laakiin raggi waxay leeyihiin gabadha markay hal cunug hal caruur ay dhashay daryeelkii badnaay waan ka waaye gabdhahooda maqlaysiin idinkana waxaa laydinka rabaa inaad shalaysaad u kolkoolinaysay ood hadalka macaani iyo sheekada macaani inaad halkaada ka sii wadan maahinay hal cunug markaad dhashay inaad iska seexata oo tiraahda hoosh waa lagu kala tegey wax soconayo maan haddii marka mid kale lagaa keeno ogowe waxawaaye haqaylina adig waad maqlaysaa marka raggiina daryeela oo ka warqaba baahidoodii xitaa gabadha waxaa laga rabaa ninka baahidiisa inay baarta iyadoo waqti badan u hayn in ninkeedii raalli u noqota oo u sabarta dhinaca dareenkiisa dhinaca cuntadiisii dhinaca maaragtay noloshiisii dhinacyo badan inay ka fiiriso buuggii qalin waa inaad u qaadato daraasiisa ninkaada muxuu jecel yahay ninkaada muxuu baahidiisa maxay tahay qaabkuu jecel yahay muxuu jecel yahay muxuu rabaa waqtiyada lala hadlo waqtiyada
wax loo sheego waa waqtiyada xitaa ma in qofka markaad wax u sheegayso markuu asoo shaqo ka soo galay inaad u sheegto oo heblo waxaan maqlay heblaayo waxaan maqlay tiraahdo arrimahaas hala joojiyo sababtoo qofku wax loo sheegaa buuga qalin ku qoro waqtigu tartiib guriga yimaaday oo nasto degan yahay maskaxda degan tahay wax loo sheegaa waxa suuragal wax loo sheegin naga tag inuu ku yiraahdo oo banaanka looga soo careysiyo marka xaaladiisa daraasay shaqadii ka waran nolosha ka waran arrimaha yar yar oo banaanka kala soo kulmay waxa la rabaa guriga inuu raxmo beynakum mawadda wa raxma guriga waxa la rabaa in loo soo xiiso guriga wax loo baahan yahay in lagu nasto guriga wax naga baahannahay naxariis iyo kalgacal inuu yaalo guriga ma meel laga carray inuu noqdo oo la yiraahdo hortii aad joogtay guriga u tagi maayo iyadana dhahdo warkii qaylada badnaa ee joogay u tagi maayo waa arrimaha ugu badan ee inta badanba dadkeena guryaheena ku ciyaareen oo nolosheena burburiyey oo inta badanba laga fikiro waxaan saas u leeyahay shalay markaad isguursanaysaan wax isku darsanayseen waad ogeyd gabadhan inay guri kusoo barbaartay isagana wuu ogaay adiina waa ogeyd ninkan inuu guri kule kusoo barbaaray asalka waxay ahayd waa in sharciyada ruleska la ilaaliyo sababtoo boqolkiiba boqol gabaray wiil dhammaystiran ma helaysid waxaa laga yaabaa boqolkii 50 60 80 inuu noqdo dabeecad inuu qalafsan yahay meelo kale ku fiican inuu ku fiican yahay dabeecadiisa qalafsan yihiin adi waxa laga yaabaa gabadha inuu ku fiican tahay ku roonto wax kasta ku sameynaysa laakiin xanaaqsan ka saaray haddaan lasu sabrin meel lama gaaro marka sabrin u baahna aabiyaashiina hooyooyinkeeni hore markaas waxay ku gaareen sabarkii ay wadankii wada noolaan ogaadana gabadha iyo walaasha galbeedka ku nool waagii hore bay'ada ayaa dadka kaalmeynaysa oo qaraabadii iyo dadkii lagu dhex jiray hadda kaligiina naay markii la isku dhacaa hadda sirtii in degdeg banaanka loo faafiyo maahin waa in la soo roonaado waa in la isdhageysto waa in la ismaqlo waa in la kala dambeyn jirto waa in la ilaaliyo la yiraahdo war meeshaan in qurbaynu joognaaye bal yeenan kala tagin oo isu dul qaadin wax badan la isku sabr xitaa tanazul labada dhinac waa inuu ka yimaado mid ka mid ah si ay guriga jiritaankiisii ilmihii noloshoodii u sii jirto haddii kale waxay noqonaysaa in la isku baabado marka sidaas u eegi doonaa laakiin haddaad seexato macnaha ninkaada ogow gabar yahay inuusan gabar kale sidaas u eegin haddii aad samayso ood ninkaada raalli u noqoto ood dhegaysato oo waqti badan ku bixiso waxaa xaqiiqo ah in maaragtay ninkaaga adiga habeenii maalinba uu kaa fikiraa saacaddu shaqada ku maqlay haddaa uu maaragtay aad uu ku misgarayn doono dardaarankayga muxuu yahay marka waa ragow gabdhaha waa hooyooyinkiini waa walaalihiini waa walaasha waa ina adeerta waa ina abtida waa tii magaalada kugula dhantay waa tii afkaaga walaashaa waatan af soomaaliga kugula hadlaysa waa gabadhii kaasoo dooratay dadkoo dhan marka ka fikir ogowna in ilaahay uu wax kaa weydiin doono gabadhaas aad la nooshahay xaqiiqdeed iska goorso keliya ma soconaysid guur waa la guursan karaayo waa la boobsiin karaa hooshii laakiin guurkii wuxuu baahan yahay dhaqan waxaa loo baahan yahay ficil iyo hanaan nololeyd hanaankii nolosha aan raaci lahayn qaabkan nolosha u raaci lahayn ayaa loo baahan yahay raggan waxaan kula dardaarmay dumarka hala caawiyo haddaad la nooshihiin caawinaad bay u baahan yihin caawinaadda waxaa ka mid ah hadal fiican kula hadasho inaad tartiib ula hadasho deganaa ula hadasho waqtiyadii ay daalan tahay waqtiyadii caadiga tahay caruurta iskuulka iyo dugsiga ha laga geeyo oo ha lagu saaciido waqtiyada ay mashquulka tahay hana lagula dadaalo gabdhaha ragow dumarkaaga ama xaaskaaga ama dadka la noosha inay wax barato hadday diinta baran lahayd iyo hadday maadi baran lahayd cilmiga waqti geli inay gabadha haddii iyada wax barato carruurtaadii anfici doontaa isbuucii hal maalin ilmaha ha laga haayo hala soo booqda dhee waalidkiin iyo walaaliheen ha u diidin waxaan sharciga islaamka ka hor imaanayn geey masaajidii meelaha khayrka ka socdaba muddo markaa joogtaan ba cazuumaad u samee muddo markaa joogtaan cazuumaad u samee muddo markaa joogtaanba cazuumaad u samee adiga iyo iyada waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo cazuumaadda maxaan u cazuumiye mararka qaar inaad iscazuntaan ood waqti wada qaadataan oo aad u baahantihiin sababtoo ah maahin awlaaddii iyo reerkii arrimihii kale in lagu sii jeedo mararka qaar waa in waqti lasoo helo insha allah hadiyad u geey markaad awooddo kagana farxi haddaad awooddo hadiyaddu soo iibi qofka bini aadanka wuxuu jecel yahay qofka wax u keena haddii xaaskaaga tahay iyo haddii walaashaad tahay iyo haddii dad kale yahayba markaad qof wax u hadiyeysa dadka kale wuu kaa yaqaanaa tusaale
nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam taadu wa taxaabu wax isii waad isjeclaanaysa hadiyada macnaheedu waxa waaye dadka qalbiyadooda isu furaysa qofkii hadiyadii markaad aragto koobkii ama qalinkii ama maaragtay saacadii ama katiinada kuu keeno ku xasuusan waxaa leedahay hebel aa ii keenay marka dadka inay wax isu hadiyeeyaan way fiican tahay waana dadka sida qalbiyadooda iskugu soo dhowey marka xaaskaagana way kaa istaahishaa inaad hadiyad u geyso gabdhahena hala ogaada ragow insha allah ragow gabdhaha la daryeelo gabdhaha walaalaheena saan soo sheegay waa gabdhaha nala dhashay adiga walaasha in la dayaco ma jeclid walaasha ilmo badan in looga tago ma jeclid walaasha in banaanka lagu dhaafo ma jeclid marka adiga sidee u jeclaanaysaa in gabdhaha kale muslimaadka aad sidaas oo kale ula dhaqanta waa gabar ku dadaalaysa oo dharkaaga dhaqaysa oo noloshaadii ka shaqaynaysa oo adiga ku garab taagan oo maaragtay ceebtaadii asturaysa haddana haddaad tiraahdo la ogaan maayo gool waxaa marka barnaamijkeennii marka arrimaha ragga uga hadlaynay kolley waxa mar labaad ku celin arrimaha guurka iyo wada noolaashaha wax sahlan maaha waxay u baahan yihiin waxna waa afka laga sheego waxna waa dhaqan wax u baahan iyo practical marka practical ahaan waxaan dhihi lahay dadka dhallinyaradan guursanin weli waxaan ku oran lahay intaada guursan ka hor koorso gal koorsooyin waxaa jira oo arrimahaas looga hadlo kutubo islaamka laga qoraa jiro yaan guursan maxaanu guursan haddii la guursado guriga xaaladiisii waa sidee in marka aad tuxfa sunniyahaas oo kale iyo akhrisataan oo qofka uu raadiyo kutubada noocaasa waxaa markaa rabtay inaad samayso kasoo qaad cunto haddaa rabta inaad kariso waxaad isku dari lehed waa inaad ogaato marka markaad rabta inaad guursato qofkaad guursan lehed waa inaad ogto aniga waxaan jecelahay noocaas iyo noocaas iyo noocaas adiga waxaad jeceshahay iyo waaqica waxa jiro waa kala labo mararka qaar saa wax u jeceshahay u dhici maayaan ninkaad jeceshahay heli maysid ama gabadhaad jeceshahay gabar haddaad rabto buugii qalin aad u haysato waa gabar dheer oo 1.80 jirta oo qurux badan oo dhudhuuban oo maaragtay meel kastaba ku fiican maasha allah oo dadka hadday hor imaatoba dadkao dhan maasha allah dhahayan waa adag tahay insaad oo hesho waxaa laga yaabaa intaad raadinayso kasoo qaad 8 shardi inaad ku xariiqayin qalin buuga haystigtig quruxdeeda nasabkeeda diinteeda akhlaaqdeeda waxaas dhan inaad saxdaa laga yaabaa laakiin aad kuwii kale ay ka hor yimaadaan laga yaaba inay cayilan tahay laga yaaba inay dhuuban tahay dhuubnaashaad jeclayn waxaa laga yaabaa inay dheerarka dheer tahay dheerarka aad jeclayn waxyaalo badan oo caqabadaa jiro ka hor imaanaya marka sidaas daraaddeed liiska uu ninka dhallinyarada wato maahin liiska guur gala liiska gabadha wadatana liis guurka gala maayo macnaha markaan saas leeyahay guurka waxaa gala gabadhana 4 arrimooda loo guursadaa ninkana 2 arrimood baa loo guursadaa ninka waxaa loo guursadaa nin aad diintiisii islaamnimadiisii raalli ka tihiin iyo akhlaaqdiisii labada shardi haddii la helo reer hebel ka dhashay iyo laangaab waa ilaan dheer maaha gabdhaha in la siiyo laakiin waxaa la fiirin zamankan kartidiisiinu fiirinaynaa zamankan waxaynu fiirinaynaa nin shaqaysta ma yahay zamankan nin gabadha badbaadin kara maya waxyaalo badana laga rabaa weliga inuu fiiriyo oo arrinta la xaqiijiyo ninkan oo intii la qaatay cv-giisa lasoo baara who is this guy yuu yahay intaana gabadha la siin gabadha ii soo hartay gabadha waxaa lagu dooran 4 arrimood quruxdeeda nasabkeeda iyo maalkeeda intaas markii lagu daro wuxuu nabiga ku dara sallallahu alayhi wasallam diinteeda marka waxaan kula talin gabar diin leh horta guurso diinta waxaan ka wadaa gabar diinta fahmaysa oo oo muxajaba ah oo diinteedii taqaan waxa laga yaabaa gabdhaha kale inay haddaan xijaabnay mana laga tegaayo maya gabadha Soomaaliyeed waxa aaminsanahay gabar kasta Soomaaliyeed xijaabka wadan haddii qofkii gayaankeedii nolosha ka rabo u bandhigo oo yiraahdo inaan ku guursadaa rabaa laakiin shuruudeeda waxay tahay gabar xijaabka inay qaadato inay aqbalayso saasaan aaminsanahay marka gabdhihii kale ma lihin banaanka looga taga laakiin waxay diinta ka hadashay asbaabta loo guursado uma kaliya ka hadla ama wixii dhaqan Soomaali ahaaneedo in adeerta in abtiga la siin jiray haddii dee asbaabtii shuruudii soo buuxiso wax ka fiican ma laha wax diidana ma laha
laakiin asbaabahaas waa asbaabaha loo guursado laakiin intaydan dhalinyaro ay guursan waxaa idinkula talin dadkan guur arkin inaad ka hor koorsooyin qaadataan oo guriga ugu soo orod maahin ninkii shalaad bannaanka ka baratay ninkii maahin gabadha shalad bannaanka ka baratay hadalladii macaana guriga loogu tegi maayo culeys badanaa jira kuwii marka waxaa laga yaabaa inaad leedihiin oo kuwii guursaday maxaad u haysaa somaity training maxay u hayaan gabdhihii hore soo guursaday waa gabdho khibrad leh laakiin waxaad dib u eegtaa asbaabihii dhaliyey inuu guurkaadii burburo arrintaas waa muhim buugii qalin qaado sababtii keentay haddii sababta marka sabab diiniyan iyo sharciyan kuu bannaan ay tahay calafkaadaad raadinaysaayo wixii ilaahay kuu qoran baad sugaysaa laakiin haddii ay sababta tahay sabab adiga sabab u ahayd iyo fudayda mararka qaar laga yaaba oo gabdho badanaa nimankooda iska keefur dhaho no ways iyagoo waxba jirin haddii sidaas tahay waxaad u baahan tahay inaad dib u gasho koorsi caqlo celin oo dadka experienciga leh oo reeraha 20 sano iyo 25 sano isqabaan inaad liiskooda baarto profilekooda la xiriirto tiraado reerkiina dhowr 20 sano uu dhisay maasha allah wal maxaad igu soo kordhi kartaan in dadkaas la weydiiyo talo ilaan dadka waxaa masaa'isha la weydiiyaa fas'alu ala dhikri in kuntum laa dadka waxaan xirfadooda ah ee muddo ku dhex jiray oo runtii dulqaadkeeda leh oo diiniyan iyo maadiyan ba yaqaana oo psychology ahaana u yaqaana diintana yaqaana si maaragtay gurihii u dhismaan oo reerihii u badbaadaan oo doonteeni noqoto aan saaranahay safiinatu najaa doontii lagu badbaaday ama salvation boat waxaad u taqaanaanba doontii badbaadada marka guryaha la badbaadiyo reeraha la badbaadiyo mawduuc waa idinku dheereeyey mana jeclayn inuu qaata laakiin ragga walaalaha aan farta ku fiiqayna igama aha walaalkaygiyo inaad si qaasa adiga ku maaganahay laakiin waa waaqaca waxaa jira waaqac haddii laga hadlana adiga maaha macnaheeda in laga hadlay haddii markaad u aragta adiga in wax lagu geystay ama ragga qaar u arkaan ragga in la dhibaateeyey ama raggii in maaragtay si qaldan loola hadlayna aniga waxay iga ahayd naseexadana addiinu naseexa waa qof kastay anfacaysa oo caamadii anfacaysa oo culimmadii anfacaysa oo dadkoo dhan anfacaysa ilaahay waxaan ka rajayn in kelimadan uu dadkoo dhan ilaahay ku anfaca annagana qaladaadkeennii iyo wixii aan markaas aan walaalaha ka gallayna waan qaadanaynaa haddaad noo soo tabisaan waanu cabdiliif aadan waxaa idinkaga tegay meel kastoo joogtaanba ramadaan mubaarak